xoghayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Mudane Cabdirasaaq Siciid Ayaanle oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta aqalka baarlamaanka ayaa si qoto dheer uga warramay taariikh nololeedkii Allaha u naxariistay taliyihii guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Sarreeyagaas Cabdillaahi Fadal Iimaan xoghaye Cabdirasaaq isagoo arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlaya waxa uu yidhi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun suuqayo horeysay oo aan wada galay iskuul booliisiya Baydhaba iskuulka loo jilay Ali Salaamay anagoo ka soo baxnay dugsiga sare soo dhamaysanay shaqo qarantii waxaan ku biirnay ciidanka booliiska waxa tababarkayagii aan ku galay magaalada Baydhaba iskuul loo jilay Ali Salaamay Allah yarxamo marxuumku markii aan soo galay 120 arday baan hayn reer waqooyiga waxaan uga jeedaa waxaan u badnayn ama aanu haynba reer Somaliland awdal sool hargeysa sanaag burco marxuumku markiiba wuxuu noqday wuxuu ahaa nin aad u firfircoon markiiba wuxuu noo noqday taliye kooxeed shan taliye kooxeed baanu yeelanay taliye kooxeedkii ugu horreeyay laga magacaabo ayuu ahaa kooxdaas ayaa anagu ka mid ahaa isku sariir baanu seexan jirnay labada sariir oo suuya dhawaayeen tababarkii markuu noo soo dhamaaday Ali Salaamay loo jiray Baydhaba waxaana la keenay iskuul booliisiya oo lagu baray shuruucda waxaan ku baranay halka 6 bilood habka dambi baarista habka faraha loo qaado iyo sida maxaan ku raadayay criminal investigation oo dhan ku soo baranay markaana taliye kooxad bano ahaa 120 kayga arday markii aan ka soo baxnay ee imtixaankiina laga qaaday aniga marxuumku number 3 iyo number 4 baan kala galay 120 kayga reer waqooyiga ahaa markii la arkay dawladii siyaad barre markay arsiinaan reer waqooyi nahay dhamaantayadu waxay bilowday in ilaa saylac ilaa qandala si aan mar dambe aan soo aragba ayaan loo kala qoray nasiib wanaag labadayada isla waxa lagu qoray saldhigga Central ee xamar loo jiray anna saldhigga Yaaqshid baa lagu qoray halkaasaan dumar baarayaal ka ahayn isagu markiiba waxaan markaa darajooyinkan la siiyay markii hore waxaan lagu ballan qaaday in xidigna la siiyo 120 markaan noqonay baa leeyahay nimankan aan xidiga la siinine waxaan la siiyay kormeere koowaad iyo kormeere labaad saan imtixaanku kala sareynay wuxuu noqday madaxa baarista ee saldhigga Central anna waxaan noqday madaxa baarista ee saldhigga Yaaqshid intaasaan soo wada soconay dagaalkii baa dhacay halkan uu yimi wuxuu ka bilaabay inuu askari ka noqdo halkan si uu ugu shaqeeyo ummadiisa halkii buu booliiska ka bilaabay saldhigga dhexe ayaa taliye looga dhigay jaranjarooyinkii booliisku lahaa oo dhan buu soo maray haddii tahay baaristu markaa ku bilaabay isagoo dee markaa darajadiisu ahayd waqtiga sarkaal ahaa wuxuu noqday taliye saldhig wuxuu noqday taliye qaybeed Soomaaliland markuu yimi wuxuu noqday hoggaan wuxuu maanta maxaan ku raahdaayay isagoo ah janankii ciidamada ayuu ku geeriyooday oo tiisi ugu timi wuxuu ahaa nin maxaan ku raahdaay go'aan leh wuxuu ahaa nin maxaan ku raahdaay eedaabtiisu aad u badan tahay wuxuu ahaa nin aad maxaan ku raahdaay dabacadiisu ay aad u degan tahay wuxuu lahaa hogaamin buu lahaa hogaamin baan u qirayaa wuxuu ahaa nin ilaahay maxaan ku raahdaay ka baqda ayuu ahaa waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun